السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتا dhamaan waa idin salaamaya ku xiran channelkeena Kamal Turki 2 maanta kuleysa oo u jeedaanba waxaad arkaysaan baarashuudka hawada loo raaco ayaan maanta ka sheekay doonaa carigaas iyo Turkiga wax badan ku soo dalxiisnay insha Allah wax badan ka faa'iidi doontiin ayaan dareemayaa insha Allah. Все, сейчас свет погасит и можно спать. Ben basacağım gideceğim. Bir şey söyleyeyim mi? Her gün abuk subuk işlere gidiyoruz. 5 kuruş abici bir şey yok. Arkaya İş yatıyor. yok. Sen nasıl yatacaksın bunu? ninkaas oo ku filmaan turjumaan waa Yatacağım da yatmayamam. Они любят все выпечку, только горячую. Только горячую, да, они едят. Вот Да. Они приезжают сюда, берут горячую булочку. На остановочке почувствуйте, что мы остановились. Хотите выйти, можете выйти. Нет, нет. Yattı uyku. Özgür bir şey olsa haber et. Abi gidelim. Kapıyı kilitledin aferin. Vallahi saat kaç? Bakayım. Saat 20 var. O zaman çabuk çabuk. Geç kaldık yani geç. Allah aşkına 5.30'da mı kalkıyor? Kaçta kalkıyor baba? 5:30. Yani nasıl? marka kale asxaabay qaybtaas waxaa ugu soo tegay codka si ay u dhageystaan waxyaabaha xogaa codkooda Turkida iyo waxyaabaha city hadda kusii socon doonaa kolley saa ujeedaan carigan xilli habeena soo baxnay oo ay weli qoraxda soo bixin xilliga salaada kadib inay aada jeclahay xilliga soo baxnay hadda xoogaa waaga soo baryayo iftiima soo baxay saa ujeedaan magaalada aan soo galnay waxaan u soconaa magaalo lagu magacaabo Pamukkale waxaan kasoo tagnay magaalo lagu magacaabo Marmaris so Marmaris aad dareemaysid saan hore usoo sheegayba waxaa lagu magacaabaa dhulkaniti Marmaris magaaladaas waxaa lagu magacaabaa jannada Turkiga u yaqaanaan dadka Pamukkalena waa magaalo u dhow xawaali 2 saacadood mise 4 saacadood waa ma hubo labadaas mid ah laakiin maybe 4 saacadood inay jeclahay 4 saacadood soo soconay 4 saac kadib magaalada soo gaarayna meesha baarashuudka laga raaxa tegi doonaa hadduu alla idmo marka maxaa la dhahay baarashuudka kolley horta magaalada aad u qurux badan tahay tii aan kasoo tagnayna hortaas maba la qiyaasi karo exactly taas only dalxiis keliya loogu talagalay xitaa deegaan xawas ma loogu talagalin dalxiiska keliya loo diyaariyey aad u qurux badan tahay maxay leedahay maxaa la dhahay meel oo maxaa la dhahay markabkay kusoo xirtaan sida Mina ama dekado kale markabyo weli aad u waaweyn oo qurux badan insha Allah marka soo duubnaa insha Allah arki doontiin marka magaaladan idan aad u qurux badan kuley indhihiinaba u jeedo si u dhisan tahay magaalada u degan tahay inkastoo xilli hore soo baxnay weli qoraxda iyo san soo bixin laakiin waaga soo baraya iftiin waxaan dareemaa xilligan xilli corona iska ahayd dad badan maysan jirin socodkooda marka kuleysa ujeedin dabaqyada iyo buuraha iyo magaalo kule aad u qurux badan waaye hadda kuleysa ujeedaan gaariga saaranahay gaariga markaan nasiib waxaa ku yaala qaybta hore kasoo fuulnay marka taas waa noo saamaxday inaan ka duubno halkan kuley dadkana soo wadayna dad dalxiiska dadka wado oo maqan Soomaali waxa lagu dhaho mafahanti dadka dalxiiska wado dadka ayaa la socda oo kuley meelaha iyo magaaladan oo kala sheegayo inkastoo ay nasirkooda iska hordeysnaayeen xilli oo hurdo
qofka iskaga baahan yahay waaga xilliga salaada kadib iskaga noqsado ama qofka hurdada aadka ugu macdahay ay kamid ahayd laakiin alsadana waxyaabo badan inooga sheekeynayeen magaalada iyo waxyaabaha la dalxiiska loogu talagalay iyo meelaha qadiimiga waxyaabahaas inoo sheegayeen odaygan hadaa xasuustiin marka labaad soo raaceen waa odaygan labada marba asoo soo raacnay isla same company ah ka dalbanay inay noo qaadaan markii parachute-ka iyo marka paragliding-ka labadaba so asiyaabana soo xasuusin dhahay idinkii soo dadka parachute-ka marka idin wadaay soomaahan markaas ku dhahan haa sax markaas laakiin anaga iyo parachute-ka waxaan la socday hal wiil oo Ukraine iyo ani xaaskiis taxdiina ahayn laakiin markaan paragliding-ka ugu yaraan family badan la soconay ugu yaraan 5 qof 6 qof camal la socotay iyo laba cunug yaryar wax saamala ku socdeen inkastoo parachute-ka aad risk badan maahan kulli inkastoo masaafo aad u badan loo kacayo laakiin haddana riski oo cabsi badan ma jirto kulli qaab salad camal waaye marka sawiradan soo aragtana rajayna haddana live oo arki doontaan markaan gaarno meesha laga duulayay ama buuraha loogu talagalay in laga duulo tan kalena waxaa jirta oo raba inaad ku sheego inay iska hubiyaan مثلا haddii aad shirkado kale maxaa la dhahay adiga kusoo wado dalxiis kusoo wado ama company oo dalxiis kusoo wado waxaa iska hubisaa waxaa jirto meelaha qaar hadda anaga maraan tagnay dalxiiska hadda Bamukale ku imaanay laakiin midaan ka horeeyay oo aan ku tagnay magaalo loo yaqaano Cappadocia oo aad u qurux badan laakiin dhibkana qabsado waxay ahayd taas cimilada ayaa aad noogu xumaaday ma aan raaci karin parachute-ka because parachute-ka cimilada degan u baahan yahay cimilo aad u degan u baahan yahay haddii ay dhacdo in dabeele ay jiraan maalintaasiiti ma duulaayo mana shirkadaha ku dhahan maya waa iska joogaysaa maanta maalin hebel ku qabanaa marka way yaqaanaa maalmaha dabeesha degan tahay maalmo isbuuci 2 times ay sameeyaan bis isbuuci 2 maalin ka sameeyaan I think these days waxaa meenaa markaan waxay ahayd maalin axad ah ayay ahayd so axada iyo arbacada miya mise axada iyo talaada so that 2 days ay u dhaheen inaa qofka cimilada aad u degan yihiin magaalada Bamukale oo badanaa la qaadaa ama dadka isku jamciyaan marka aad uga taxadir mar waxaa dhici doonta inta safar dheer soo gashid inaysan taas kugu dhicin so iska sii balanso u sheeg maalmaha exactly la hubo 100% مثلا 90% ma dhihi karaa mar walba wadaca isbedelaa waxa amar ilaah ku jira wax bini aadanka waxaa maahan cimilada iyo dabeelaha iyo waxyaabahaasiti inkastoo waxyaaba saadaal lahay aad ugu fiican yihiin saadaasha cimilada iyo waxyaabahaas aad loogu fiican yahay laakiin wax 100% ma sameyn karaan because wax walba bini aadan markiisa waxa ku jiraan amarka la ku jiraan marka inaa maalmahaas aad iskaaga hubisid magaalada kule ujeedin aad u qurux badan tahay meelahan dabaqadan aad ku dhisan meel aad u qurux badan whatever yaanan ka bixin mawduuc hore ku jirnay marka maalmahaas aad iskaaga ilaali shirkadda weydii haddii aad adiga magaalada laakiin anaga magaalada lugeena ku imaanay marka ku imaanay kadib waxaa go'aansan si waqti badan oo idinka nooga dhumin مثلا isla maalintaas hadii مثلا la dhihi mar waxa dhacday isniinta kale inaad tagnaa rabnay waxaan ku leeyahay marka isniinta ma baxa ma la sameeyo parachute marka waxaa sameeyay waxa la hayaa safari jeep soo qofka ku fududaa hadii uu maalintaas ma la sameeyo maalinta ku xigta wax kale iska sameeyay oo iska danaysanay macnaha waxyaabo kale oo entertainment aad u far badan ay magaalada leedahay soo maalinta isniinta marka weynay maalinta isniinta marka waxaa sameeyay waxa la hayo idan waa in soo duubi doona insha Allah mar maalinta isniinta waxaa galnay marka waxa la hayo safari jeep oo aad u fiican aad xamaasad u leh the most exciting ama excited oo ahay oo asameynay oo dalxiiska city safari jeepka waxyaabo aad u fiican ay leedahay waa la dagaalamaa bawr korkiisa lagu saaraa marka insha Allah idin ma hadayaan ku mashquulin waa idin soo duubi doonaa idin muuqaal aad arki doontaan ka dharki doontaan oo si fiican u arki doontaan qorida marka aad qortid counterto aad tagtid safari jeep aad ku qortid Soomaali waa ku soo baxay YouTube-ka insha Allah ama kanaalkeena toos ugu dooran doontaa markaas oo dhigno marka aad u xamaasad badan aad u fiicneed dad ay janib kala badan ku sameeyeen aad fadila konton qof camal baawar tira badan istaga dhigayo biyo la isku firjinaa la ciyaarayo meel qurux badan lagu geenayo waxyaabo aad soo exciting u lahayd xitaa aniga mar labaad inaan ku ceshana isku daynay laakiin waqtigan uu suurta gali waayay
kadibna waa iska soo baxnay laakiin inaan ku ceshana naga go-need maxaa lahay waxyaabahaas mootooyinkan oo kale waa la raacaa in exciting waaye duurka galeynaa bamo kale kusoo sameyn laakiin inta waa iska dhaafnay maadaama bamo kale kusoo sameynay bamo kale adhihin bamo kale halkan waaye waxaa kusoo sameynay Kabadokia meel lahay Kabadokia kusoo sameynay so mar haddaa waxaa aragtid mar labaad inaad isan exciting fiican lahayn sida safar jeep oo kale waxaa is leedahay iska dhaaf saas iskaga dhaafnay laakiin idin waa aad u fiican tahay mootooyinka xamaasada leedahay marka hadda wadooyinka kusii soconaa magaalada aad ay u qurux badan tahay asxaabe ilaa iyo qaybta ugu dambeyso inaad daawatid Regina 4 qayb kala dhignay because YouTube-ka ma la ogolo maxaa lahay video aad u dheer size-kiisa marka hadda kan 12 daqiiqo ama soconayo marka kulli hadda magaalada u soo dhawaanay aad u qurux badan tahay laamiyaasha waa nadiif maxaa lahay geedaha naturalka waxyaabaha aad u badan yihiin buuraha geedaha wada cagaarka meel iyo iska dhisan xilligaanitina aad u fiican tahay kulli safarka adoo soo kacay oo xilligan magaalo soo galay magaalada degan gaari saaranta yani waxyaabo shucuur iska qurux badan waa qofka aad xamaasad u dareemayo dad kale oo aadan dadkaada la socotid la sheekeysanayo waxyaabaha qaar laga sheekeynayo magaalada iyo waxyaabaha ku saabsan waxyaabaha aad u fiican tahay marka qaybtan qaybta koowaad le waaye insha Allah xarijina ilaa qaybta u dambeyso barashutka qofku waxyaabaha uu dareemayo waxyaabaha u baahan yahay waxyaabaha looga digayo insha Allah hadda maalmaha qaaska kale helay waa ka wada hadli doonaa insha Allah intaasana ku gabagabeynayna qaybtaneetii wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh asxaabteen qaaliga